السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كسلوة عارجر ميديا برو maanta waxaan tusi doonaa qaabka loo sameeyo sawirada ciida sawir noocan kala qaabka loo sameeyo hadaba hadii aad rabto inaad sameysid sawir noocan oo kala daawo fiidiyowan bilow ilaa dhamaad sidoo kale subscribe saar like waa noo muhiim waxa aqoon nagu soo waday qaybta comment waa mahadsan dad waxa u baahan si aad u sameyso sawirka ciida qorfaas u sameyso waxa u baahan pixartiga iyo pixlabka waxa ku hormareynaa pixartiga shaqada inta ugu badan waxaan ku qaadana pixartiga inta uu soo kacay sugee kadib markuu soo kaco waxa taabanay calaamadan dhaxda blasta taabanay kadib meesha all photos ku qoonta taabanay kadib waxa soo galiya sawirka aad rabto inaad background ka dhigto sawirka aad rabto inaad background ka dhigto soo galinay hadda aniga waxaan rabaa sawirkan waxaan rabaa inaad background ka dhigo soo galinay sawirka aad rabto inaad background ka dhigto kadib waxa sameeynaa waxa soo galiya sawirkaaga aad rabto inaad ciid saartid sawirkan hadda soo qaadanaa sawirkan kala soo qaata marka sawirka waxa la socda background si aad background ugu jirto waxa taabanay qaybtan ku qoranta kad aad maqas ku sawiran yahay kadib waxa taabanay person meesha ku qoranta hadda sawirka soo nadiif meelaha hadda meeshan kale ka soo raaco ay wax ka soo raacaan waa iska tiri doontaa waa kan sawirka hadda soo qaadana sawirka marka sawirka waxaan ku aadinaynaa masaajidka inuu naga qariyo marna qaybtaas ku aadinaynaa kadib markaasna qaybtan u aadisid waxa taabanay meesha ku qoranta add photo kadibna waxa ku soo daray background kala ku soo daray marka background-yadan aan hadda isticmaalayo ayaga dhan waxa idin soo dhigaa description-ka idin soo dhigaa qaybta hoose idin soo dhigaa xagaas soo degsi kartiin background-gan hadda background-gan ku daray waxa taabanay save taabanay inta markaas samayso haddana si aad u qurxiso meesha ku qoray waxa ku qoray meeshan ciidul adha ku qoray marka sawirkan waxaan soo qaatay sawirkan ari ku sawiran soo qaatay marka sawirkan ari ku sawiran xagga dhigay sawirka soo saas kale oo background-gaas haddaan ka wato marna inuu soo baxo waxaan ku sameynaynaa marka waxaan tagaynaa qaybta ay ku qoran tahay bin kadib waxaan taabanaynaa mid oo fiican aan ka fiirinaynaa intaan multiple oo fiican multiple kan taabanaynaa hadda sawirku naga qarsan yahay background-gan hor u qaatay waa si fiican ugu jeedo wax yar qafiif waa qafiifka marka inaan ka dhignaa rabno qaybtan kale waxaan ku qori doonaa kul caam oo antu biqayr marka gulaanka soo ka soo degsanay way nagu jirtaa saa u soo geliso waxa taabanay add photo meesha ku qoranta kadib waa tan intii nagu jirtaa xagga dhiga ayadana waa soo bixi kadib waxa imaanay meesha ay ku qoran tahay bin kadib waxa taabanay multiple screen saan hadda ugu qoran labada sawir marka inta marka marayso save hadda